waxaan maqlayaa badii baad gadateen war ma gadan war wallaahi ma gadan war runtaan isu sheeg war xanta iyo waxa xun intaan iska dayno wax fiican ma ahe haddii aynu sheegno inta wanaagsan oo aynu samayno waxaa ka badan inta xun oo aynu sheegno. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa si aad ah uga hadlay arintaasi waxaana uu ku tilmaamay heshiiskaas uu saxiixay inuusan ahayn mid isaga uu go'aankiisa lahaa laakiin waxa uu yiri soo wasiirka sheegay xaqa u leedihiin dadka Soomaaliyeed inay ka daqaan wax allaale iyo wixii dhibaato ku ah qarannimadooda hantidooda aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay runtii sida rad ficliga ama reaction-ka laga bixiyay inay dadku ilaashadaan dhulkooda ma ku dheeraan doono aniga wasiir baan ahay golo wasiiraan ka tirsanahay prime ministerka in hor fadhiyo Umar Cabdirashiid Cali Sharma arke amarkiisa aan ku saxiixay aniga heshiiska marka cawada asaga ay hor taagan heshiiskaas wixii ku saabsan iyo waxa ka qabtiin waxaan rajaynayaa ra'iisul wasaaraha asaga ka jawaabi doona waa sanadkii salaam alaykum. waxaa markii dambena Umar Cabdirashiid uu ka hadlay arintii uu ka dhawaajiyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isagu ah wasiirka qorsheynta iyo qaranka isla markaana ahaa ninkii saxiixay heshiiska badda mudane Umar Cabdirashiid Cali Sharma arke oo arintaasi falaqeynayana waxa uu waxaan hal arin ka dhahayaa arintii badda oo hadda Cabdiraxmaan Cabdishakuur ka shaqeeyay arintan horta waxay ku timid asaaskeeda annagu joogna ayaa waxa loo yimid UN ka haysta walad Cabdalla iyo nin khabiir ah arrimaha badda wuxuu nagu yiri warneeyo ma la socotaan bisha May 12 in deadline uu jiro deadline-kaas oo haddii inaan annaga codsan in naloo zaa'idiyo waxaan idhahan continental shelves baddeena ay u badan tahay inay la wareegto international seaboard qolada Soomaaliya loo dhaafi doono 12 mayl inta kaleetana la siin doono UN-ka hay'adaas inta dowladda Soomaaliyeed ay dib uga soo codsanayso runtii arrintaas waa codsanay in la cusboonaysiiyo waxaa kaleeto codsanay in annaga hadda waxaan haysanaa 200 mayl oo la yiraahdo exclusive economic zone in annagu dhulkeena uu intaas dhaafo laakiin aan ogeyn meesha ku dhamaado dhowka dhacay wuxuu noqday inaan annaga codsano muxuu ahaa dhul 200 ka badan waxay khasabtay in annaga Yemen iyo Kenya labadaba maadaama aan xuduud leenahay oo ay dhulkeenana haddii dhulka la sii dheereeyay usgaarayo in inta la kala saarayo aan siixano wax loo MOU-ga marnaba ahayn bad la bixiyay wuxuu ahaa inaan UN-ka ka codsano in anaga dhulkana ugu daro oo inaan iska hor istaagin Kenya waa run waxay damacsan tahay in ay khalado xuduudka badda sida uu yahay Kenya waxay runtii violation ku sameysay international law sharciyan baddu waxay u go'daa hadba dhulka xuduudka soo go'ay haddii taas raacna 90 degree ayaan u galeynaa hoos ayaga dhulkooda waxay jeexeen line toos ah dacwan ka geynay in sharcigana runtii wuxuu raacsan yahay annaga sida aan rabno waxaan idin sheegayaa waxaan idin sheegayaa oo aan nooga seexanaysaan inta aan noolnahay ama aan kursiga saaranahay taako dhul Soomaaliyeed ama bas Soomaaliyeed inay soo dhaqaaqaan waa tahay daawadayaal waxaan jeclahay inaad ka bogateen barnaamijkii gaarka ah ee aanu kaga hadlaynay safarkii dhawaan uu ku soo maray ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya mudane Umar Cabdirashiid Cali Sharma arke isagoo uu la hadlay jaaliyadda ballaaran ee Soomaalida ee ku nool magaalada London intaanu barnaamij kale dib u kulmi doono waa anigoo Ibrahim Umar Baafe
xagga kaameradana saaxiibkay olol cabdidiini waxaan idin leenahay muqdisho inay dhisnaato dhiigna aan ku daadan muqdisho inay dhisnaato muqdisho inay dhisnaato bukaaniyo muqdisho inay dhisnaato barakaca dhaqaalo muqdisho inay dhisnaato isqabsada oo muqdisho inay dhisnaato dhalinyaro dhalatee muqdisho inay dhisnaato odayaasha dhaqanka la isku raacee kii dhuumanayo dhabarka muuqdo kii dhuumanayo dhabarka muuqdo waa dharaan lagu dhowrayaay dadkaaga dhinac kara yaada mumine dhinac kara dadkaaga dhinac kara